abbaara sagaalkii subaxnimo ee saaka waxa uu dabqabsaday kaalin shidaal oo ku taala suuqa dhexe ee magaalada Burco waxaana dabkaasi ku waxyeeloobay 3 qof oo uu soo gaarsiiyay dhaawacyo fudud isla markiiba ciidanka dabdamiska oo goobta soo gaaray ayaa ku guuleystay baqtinta dabkaasi iyagoo 3 qof ee dhaawacmayna ciidanka dabdamisku u gudbiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco halkaasi oo lagu la tacaalayo xaaladooda caafimaad taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Togdheer Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi Tallaabo ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu dhaliyay dabka ka kacay kaalintaasi waxaanu fariimo kala duwan u diray bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxa lagu soo dhacday qayladaan dab ah dabkaas oo kaalin sagaalkii subaxnimo isla markiiba ciidanka dabdamisku waanu ku baxnay waanu gaarnay koobta waanu daminay waxaanu sidoo kale ka soo sabato bixinay 3 ruux ama 3 qof oday waayeel oo ilaa 50 jir qiyaastii ah iyo 2 dumar ah oo xagga dambe ku jira oo guriga kaalin iyo guri kala dambeeyay baa meesha marka guriga dambe ay ku jireen dadku guriga dambe ayaan ka soo saaray odayga iyo 2 dumar ah oo dhaawacoodu aad iyo aad u sahlan yahay waxaanu soo gaarsiinay isbitaalka weyn ee magaalada Burco 2 dumar ah xaaladoodu iyagu aad bay u fiican tahay oo suffocation baa ku dhacay macnaha qiiqii bay ku cabureen odayguna dhaawiciisa dabku aad iyo aad u sahlan yahay 3 qofna waxaan keenay isbitaalka weyn ee magaalada Burco dadweynaha waxaanu sheegaynaa had iyo jeer marka ay dab arkaan ama howlahan oo kale dhacaan inay la soo xiriiraan nambarka ciidanka dabdamiska oo ah 990 aanay isku daynin iyagu baqtiyaan dabka dhanka kale maamulaha shaqaalaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee 3 qof ee ku waxyeeloobay dabkaasi waxa ciidanka dabdamiska ay noo keeneen 3 qof oo kaalin shidaal dab ka qarxay 3 qof waa 2 dumar iyo oday nin waayeel ah marka waana ladeen dhaawacoodu dhaawac fudud weeye dumarku way cabur bay qiiqiiba xidhay oo naqaskeer xidhay imka hadda way fiican yihiin aad iyo aad bay wanaagsan yihiin ciidanka dabdamiska ayaa noo keenay dadweynaha waxaan u sheegayaa Shucayb Xasan Dheere Sahan TV magaalada Burco